بسم الله الرحمن الرحيم ومعلم محمد قادر عثمان oo idin soo diyaariyay barnaamijka taxanaha ah ee cashiraanta tiknoolajiyadda fasalka 8aad maanta bidnillahi alkariim waxaan qaadan doonaa hadduu Allah idmo cashir ku saabsan viruska iyo sida uu dhaco computerka iyo sida loo daaweeyo loo yaqaano lidka viruska cashirka markaan eegno waa maxay virus waa maxay saan ogsoonnahay viruska waxaa waaye barnaamij la suubiyey barnaamijyada ay suubiyeen waaye soo marka hore ma jirin laakiin xanuunada viruska caadiga ayaa jira oo bini'aadamka ku dhaco iyo xayawaanaadka dhirta wixii lamid ah laakiin in loo isticmaalo qalab ama shay computer electronic ku shaqeynayo waxaa waaye waa virus oo hadda la casriyeeyey waaye marka waan arki doonaa viruska iyo wuxuu yahay soo cashirkan u gudagalna marka waa maxay virus viruska computerku waa barnaamij waxyeelo geysta viruska computerku waa barnaamij waxyeelo geysta dhibaato ayuu geystaa wax ka beddela xogta iyo macluumaadka wax ka beddela wax ka tirtira wax ka haleeya wax soo kicin waaye computerka ama xogta gudaha saan ku ogeyd aan xogta kuu noqonaynin waa dhibaatooyinka uu leeyahay viruska waa maxay viruska computerku waa barnaamij waxyeelo geysta wax ka beddela xogta iyo macluumaadka dira iimaylo ama email fariimo muuqaal ah ama howlahaas qaar ka mid ah oo wada jira ayaa barnaamijka viruska computerka ka qabta soo dhibaato badan ayuu u geystaa marka lama soo koobi karo dhibaatada viruska uu geysto lama soo koobi karo sidaa darteed viruska waxaa looga baahan yahay had iyo jeer in marka laga digtoonaado oo waxyaabaha loo baahan yahay laga difaacdo okay waa maxay viruska computerku waa barnaamij waxyeelo geysta wax ka beddela xogta iyo macluumaadka dira email fariimo muuqaal ah ama howlahaas qaar ka mid ah oo wada jira waxa uu barnaamijka viruska uu wadan karaa fariimo badan waxyaabo badan wuu soo kordhin karaa muuqaalka barnaamijka uu yeelan karo way kala duwan tahay dhibaatada computerka uu geysan karo ama shaqsiga xogtiisa way fara badan tahay soo aan dulmar marka cashirka waan arki doonaa ayagoo sida wax yeeli doono waa maxay viruska computerku waa barnaamij waxyeelo geysta wax ka beddela xogta iyo macluumaadka dira email fariimo muuqaal ah ama howlahaas qaar ka mid ah oo wada jira waxaad uga ilaalin kartaa computerkaada in virus uu galo adiga oo ku shubaya barnaamij ah lidka viruska waxaad uga ilaalin kartaa computerkaada in virus uu galo adiga oo ku shubaya barnaamij lid virus ah oo loo yaqaano afka qalaad antivirus marka lagu shubo barnaamijkaas computerka wuxuu ka hortagaa oo hubiyaa in virus uu soo galo haddii uu arko wax leh astaan virus wuxuu bixiyaa digniin ama viruska ayuu takooraa ama ka tirtiraa computerka waa maxay viruska computerku waa barnaamij waxyeelo geysta wax ka beddela xogta iyo macluumaadka dira email
fariimo muuqaal ah ama howlahaas qaar ka mid ah oo wada jira. Waxaad ugu ilaalin kartaa kombiyuutarkaada in virus uu galo adiga oo ku shubaya barnaamij ah lidka fayraska oo afka qalaad lagu dhaho antivirus. Marka lagu shubo barnaamijkaas kombiyuutarka, wuxuu ka hortagaa oo uu hubiyaa in virus uu soo galo. Virus dhan ma soo galayo. Haddii uu arko wax leh astaan virus, falaashyo iyo borograamyada awoodda qaarkood waxay lahaan karaan astaamo u eg qaabka viruska. Haddii uu arko wax leh astaan virus, wuxuu bixiyaa digniin, ama fayraska ayuu takooraa meel ku xiraa meel ayuu ku takooraya, meel ayuu ku xirayaa, ama wuu ka tirayaa kombiyuutarka, kombiyuutarka wuu ka tiri karaa. Waayo awood buu u leeyahay uu ka tiro kombiyuutarka. Astaamaha lagu yaqaano in uu kombiyuutarka astaamaha lagu yaqaano in virus ku jiro kombiyuutarka. Sidee lagu ogaan karaa in kombiyuutarkayga virus uu leeyahay? Astaamaha badanaa lagu ogaan karo in kombiyuutarka virus ku jiro waxaa ka mid ah qodobadan soo socda. Astaamaha lagu yaqaan marka uu virus kombiyuutar galo. Kombiyuutar alla kombiyuutarkuu doono ha ahaado, adduunka meeshuu doono ha ka yaalo, wuxuu lahaan karaa astaamo u gaar ah kombiyuutarka markuu virus soo galo. Qaar ka mid ah ayaa buugga noo qoraya. Astaamaha lagu yaqaan marka uu virus kombiyuutar galo waxaa ka mid ah: Lambar 1. Xawaaraha hawlqabashada kombiyuutarka oo yaraada. Xawaaraha hawlqabashada kombiyuutarka oo yaraata. Waa la fahmay? Xawaaraha hawlqabashada kombiyuutarka oo yaraada. Hard disk-ga oo ah kaydka kombiyuutarka ama maskaxda kombiyuutarka waxyaabaha lagu kaydsado. Hard disk-ga kombiyuutarka oo waxyeello gaarta. Qaybta wax kaydinaysa macluumaadka iyo dukumiintiga ay ku jireen ayaa loo yaqaan hard disk. Midna banaanka ayuu yaali karaa, midna gudaha ayuu ku jiri karaa kombiyuutarka. Labada midkuu ahaado waxyeello hadday gaarto khalaas waa. Hard disk-ga kombiyuutarka oo waxyeello gaarta. Waxyeello hadday gaarto xogtan waxyeello ayaa gaaraysa. Nidaamka hawlgalka oo shaqayn waaya. Nidaamka hawlgalka oo luqadda qalaad lagu dhaho operating system waa nidaamka kombiyuutarka ku shaqeeya. Mobilada waxay ku shaqeeyaan Android. Kombiyuutarkana wuxuu ku shaqeeyaa operating system oo loo yaqaan system software iyo application software ayaa loo kala saari doonaa hadhow. Nidaamka hawlgalka oo afka qalaad lagu dhaho operating system oo shaqayn waaya. Gebi ahaanba shaqada wuu diidayaa inuu shaqeeyo. Kombiyuutarka wuu damayaa. Waad shidaysaa, wuu soo kacaya, wuu damayaa. Waad shidi, wuu soo kacaya, wuu damayaa. Ama asoo shidan ayuu isdaminayaa. Waa nidaamka operating system-ka ma shaqaynayo. Ama kombiyuutarka bataatan ma soo kacayo. Waa waxyaabaha viruska dhibaatada u geysta ay ka mid tahay. Dhibaatada viruska u geysta ayay ka mid tahay. Dhibaatooyin badan ayuu kombiyuutarka viruska u geysan karaa. Sanduuqyo fariimo ah oo soo noqnoqda ama soo boodbooda. Sanduuqyo fariimo ah arrimo aadan dalbanin, fariimo aadan dalbanin ayaa iska soo baxbaxaya. Kombiyuutarka dhinaca u yaacaya, kor u yaacaya, hoos u yaacaya, hoos ka soo baxaya. Mar walba meel ayay fariinta kasoo boodboodi. Kan xir. Waad ku daali marka qaarkood. Fariimaha asaga ayaa iska soo tirtirsanaya. Dhibaato ayay marka kombiyuutarka u keeni kartaa iyo qofka caadiga ah. Sanduuqa marka laga wado sanduuq markii lagu dhaho waa box afar gees ah. Sanduuq waa box afar gees ah. Fariinna waa taqaanaa waa macluumaad marka la diraayo.
oo computerka asaa macluumaad iska diraya, cidda u diraya iyo cidda kale lama yaqaano. dhib ayaa ka imaan kara marka. Sanduuqyo fariimo ah oo soo noqnoqda ama soo bodbooda. Lambar 5, barnaamijyo aadan dalban oo iskood u furma. Waxaa dhici karto barnaamij aadan dalbanin ayaa iska soo kaca computerka. Filim aadan dalbanin oo iska shidmaayo. Waxyaabo computerka kugu jiro soo ma jirto ayaa iska kacaya, shidmaya ama shaqeynaya. Maadan dalban adiga, ii shaqee maadan dhihin, maadan amrin. Marka barnaamijyo aadan dalban oo iskood u furma ayaa dhici karta marka inay shaqeeyaan. Barnaamijyada lidka fayraska kuwa ugu caansan waxaa ka mid ah MCAV iyo Avast iyo Bitdefender. Waxaa kaloo ka mid ah Symantec. Waxaa kaloo ka mid ah Kaspersky. Waxaa kaloo ka mid ah Norton. Markaan fiirino fayraska iyo waxyaabaha la midka ah, fayraska sida u joogtaan ama arkaysaan markuu computerka galo wuxuu lahaadaa calaamadan, wuxuu yeeshaa calaamadan. Calaamadan waan ku calaamadeynayaa meeshaad ku aragtid. Calaamadaas ayuu yeeshaa oo ah calaamatul cajiib ama calaamada la yaabka ayaa hoos antiviruskaadii ama computerkaadii qayb ka mid ah ayaa kasoo muuqanayso system gudaha marka la fiiriyo. Calaamadaas waxay ku tusinaysaa in computerka virus ku jiro. Waxaa arkaysaa boxkan virus ayaa galay, kan wuu fiican yahay, kan virus ayaa galay, kan virus ayaa galay, kan virus ayaa galay, documentigan virus ayaa galay, documentigan sidoo kale virus, kuwan xirxiran weli viruska ma galin. Waxaa ogaanaysaa marka virusku inuu halalow u yahay computerka kharibo. Waxaa loo baahan yahay computerkaada marka uu antivirus ku jiro calaamadan waa inay saarnaataa saxda ah. Calaamadan saxda ah waa inay saarnaataa. Calaamadee waa calaamadan saxda ah. Calaamadaas saxda ah waa inay saarnaataa. Haddii calaamadan ay saarnaayn computerkaada marka antivirus ku jiro, waxaa ogaanaysaa in meeshaas viruska uu soo galay. Computerka waa kana marka virus markuu soo galo laptopkaadii ama computerkaada marka gudihiisii maskaxdiisii ama shaashadda waxa ku saarnaay wuu qaribaya, waxbaa wareeganaya, waxbaa inta soo kacayo. waa aragtaan computerka shaashadiisii, programmadiisii mid walba meel ayuu ka muuqdaa. Kan waa kana, kan waa kana. Adduunweynihi waa inaad isku xirtid aragtid. Hataa fariimaha qaarkood waa lagaa xadi karaa, halkaas ayay galayaan, adduunweynaha ayay u gudbayaan. Dhibaato badan ayaad marka kala kulmi kartaa. Waxaa loo baahan yahay marka antiviruska inuu lahaado security lock oo qufulkan arkaysaan, qufulkan aad ujeedaan ayaa waxaa loo yaqaanaa lock. Lock-ga lagu xiro maxaan dhahaa, lagu xiro guriyasha, qufulka guriyasha lagu xiro iyo kan computerka lagu xiro markii la isku fiiriyo qaab ahaan shaqooyinkooda isku mid waaye. Kanna guriga waxaa loogu talagalay in laga difaaco dadka wixii la mid ah. Kan waxaa loogu talagalay in lagu difaaco marka computerka. Fiilooyinkan iyo waxaan aad arkaysin leerasha nuurkan meeshan leerka aad ka arkaysid oo iftiimayso haddaan ku calaamadeeyo. Meeshan macluumaad ayay wadaa, meeshaas macluumaad ayay wadaa. Sidoo kale meeshan oo kale macluumaad ayay wadaa, macluumaad fariin. Mid fariin gudbinayso waaye. Computerka marka dhinac walba kor hoos waxaa loo soo dirsanaya fariimo. Wuu xiran yahay marka intii macnaha barnaamijku wuu xiran yahay. Haddii la furo waxaa dhacayso marka in macluumaadka lagala baxo computerkaada. Waa ujeedaa wuu xiran yahay. Computerka marka gudihiisa aad fiirisid barnaamij kasto waxaa ku xiran fure, quful aa ku xiran. Midkan wuu xiran yahay, kan wuu xiran yahay, wuu xiran yahay, dhammaantooda waxaa ku wada xiran lock. Lock-ga markii laga furo ogaada marka computerka la furo waxa uu gudbiyaa xogtiisa, wuxuu isticmaalaa binary division ama binary data oo ah 0 to 1.
computerka waxaa waye inuu eber yahay ama inuu hal yahay. So maruu computerka furan yahay iyo maruu xiran yahay, maruu furan yahay iyo maruu xiran yahay, so maruu dansan yahay iyo maruu shidan yahay, labadaa ayuu u qaybsamaa. So wax ka dhexeeya maleh. Labadaasna furayaasha u qaabilsan waa eber ama hal. Computerka xogta markaa sawir gelisid, sawirka wuxuu u gudbinayaa macluumaad ah eber hal. Tusaale haddaan kaa siiyo inta waxaan ku aragnaa hal hal. Meeshaan waan calaamadeynayaa, meeshaas waxaan ku aragnaa hal hal. Sidoo kale halkan waxaan ku aragnaa eber hal, waan ku calaamadeeyo halkaas eber hal ayaan ku aragnaa. Sidoo kale inta waxaan ku aragnaa inay inoo taalo eber eber, laba eberaad ku calaamadeeyo laba eber. So computerka dhan wuxuu isticmaalaa eber iyo hal. Saddex ma soo geli karto, lambar afar ma isticmaali karo, 5 ma isticmaali karo, 6 ma isticmaali karo. Lambarada kale 10ka kale waxaa loo yaqaanaa habtirsiimada bini'aadamka u isticmaala, ama computerka habka wuxuu u tiriyo waxaa waye eber iyo hal. Taas ayuu xogta macluumaadkan ku gudbiyaa. So fariinta marka computerka uu diraayo ama loo soo diraayo waxaa ka mid ah mid loo yaqaano message oo ah fariin oo qofka soo diraayo ama loo diraayo. So sidoo kale waxaa ka mid ah data oo ah xog la soo aruuriyo oo markaa la doonayo in la kala shaandheeyo la nadiifiyo. Oo marka la kala shaandheeyo la nadiifiyo waxay noqonaysaa information ay noqonaysaa, macluumaad ayay noqonaysaa. So computerka waxaa arkaysaa inuu leeyahay inbox oo meel wax lagu keediyo. So waxaa arkaysaa 1111011000. Lambarada meeshan ku calaamadeysan hadda ku calaamadeeyo waxaa waaye wuxuu gudbinayaa macluumaad ayuu gudbinayaa. Halkaas macluumaad ayuu gudbinayaa. So meeshan connection ayaa jiro internet haddaa isticmaalaysid oo email iyo wixii lamid ah. Halkaas emailo ayaa loo isticmaali karaa. So email haddaa isticmaalaysid waxaa u baahan tahay in aad marka isticmaashid internet. So internet haddaa isticmaalaysid waxaa u baahan tahay email. So globalka adduunweynaha dhammaantooda waxay isticmaalaan internet. Ogow marka halkan waxaa arkaysaa filaar kor u jeedo iyo filaar hoos u jeedo. Midan waxaa wax ku soo gudbayo, midan waxaa waxaad gudbinayso. Inta haddaad fiirisidna filaaraha qaarna way ku soo socdaan oo wadada kusoo jiraan inboxkaada iyo khadkaada internetka soo galaya ama computerka, qaarna computerka ay ka baxayaan. So mid dhan walba dhanka haddaa fiiriso waa lamid, dhanka haddaa fiiriso waa lamid. So xogtaada sidaas ayaa loogala bixi karaa, ama adiga diri karo ama adiga lagu soo diri karaa. So dadkan waxaa aragtaa inay ka shaqeynayaan company xog ayay 5 qaarad adduunka kala soo baxayaan. Waa dad wada tashtay in ay macluumaad iyo xog adduunweynaha kala. Haddaan fiirino meeshan waxaa aragnaa map ama khariirad ay gabadhan isticmaalayso. So mapkii khariirada 5 qaarad adduunka ayaa inta naga muuqato. So macluumaad ayaa la keenay. Gabadhan waxaa aragtaa in shaashadeeda ay saaran tahay wax macluumaad ah. So macluumaadkii waa la soo downgrade qofkii computerkiisa ayaa laga soo xadayaa. So markii la soo xado ninkan ayaa filteraynaya, haddii qoraal ay qoraal ka dhigaya, haddii sawir ay sawir ay ka dhigaya. So waxaan waa group isku xiran oo ugu talagalay in internetka wax ku dhacan. Waxaa loo yaqaanaa cyber. So adduunweynaha markaan fiirino waa kan waa adduunweynaha. Waxaa lagu xiraayay khad internet. So adduunweynaha si isku gaaro waxaa loo baahan yahay khad. Marka fiiladan ujeedid waxay ku xiran tahay cable adduunweynaha ayaa marka dhammaantood waxay isticmaalaan internet ayaa ka dhexeeya. So mapka khariirada waa kaa. So markii computerkaada uu soo galo virus wuxuu bixinayaa security alert waxa loo yaqaano in marka macluumaadkaada la xadayo. So computerka wuu qaylinayaa hadduu ku xiran yahay antivirus ding wuu qaylinayaa. Markuu qayliyo waxaa ogaanaysaa kan wax hadda lambare korkiisa ka muuqdo oo baxaya ma jiro. Laakiin kuwan kale guudka saaran, filayaashan guudka saaran waxaa arkaysaa in xogtii kor iyo hoos ay u baxayso. Waa la xadaa. Kan waa nadiif waxna wuu xiran yahay. Kan soo dhaawac ayaa gaaray oo ujeedaa kalarkiisa uu bedelmay security alertiga. So kana guud waa xogtii lagala baxay. Kan hadda loo soo socdo in xogta lagala baxo. So qofku markuu sidan yahay guud yahay waxaad arkaysaa in xogtii qofkii lagala baxay. So inta lagala bixin ka hor computerku wuxuu ku siinayaa security alert oo ah
bahal alarmi ama cod ama shanqar ayuu computerka bixinaya soo xogta in lagala baxayo aad ku dareemi kartid. Dadka ku takhasusay cyberka ama qaybta markaan gaarno cyberka ayaan idin sharxi doonaa. Antivirusyada ugu caansan computerka waxaa ka mid ah oo lidka viruska oo computerka loogu talagalay in lagu difaaco Norton ayaa ka mid ah. Baakadaas ayuu ku jiraa. Nortonadu way kala duwan yihiin. Kan waxaa waaye hal computer ayaa loogu isticmaalaya ama laba computer ayaa ku isticmaali kartaa, wax ka badan looguma isticmaali karo. Laakiin mid 4 computer loogu talagalay wuu jiraa. Hal sano ayaa computerkaada safe ayuu ahaanayaa. Hal sano ayaa marka loogu talagalay. Marka halka sano waxaa lagu qiyaasaa 360 ilaa macnaha si toos ah kugu shaqeynaya. 365 ama 366 maalmood. Marka 5 maalin kala soo hartay waxaa lagaa doonayaa update inaad subsatid ama antivirus kale aad soo gadatid. Waxaa kaloo ka mid ah Kaspersky oo ugu caansan antivirusyada ama lidka virusyada computerka la isticmaalo. Waxaa ka mid ah Kaspersky. Kaspersky marka qolof kasta ayuu leeyahay. Marka calaamadan tigta ayaa saaran calaamada saxda ah. Marka waxaa waaye marka calaamada saaran tahay sax waaye. Waxaa kaloo ka mid ah Avast antivirus. Avast ayaa ka mid ah muuqaalkii sawirkiisa arkaysaan. Sidoo kale waxaa ka mid ah AVG antivirus ayaa ka mid ah oo ah antivirusyada ugu caansan ee dunida la isticmaalayo. Waxaa kaloo ka mid ah MCAV Internet Security-ga marka la isticmaalayo ama device qalab computer marka isticmaalaysid waxa ugu fiican marka badanaa ka shaqeynaysid website iyo wixii lamid ah MCAV inaad isticmaashid. Laakiin haddii shaqo badan aad qabanaysid marka caadiga datada iyo xogtaada aad ilaashanaysid Kaspersky MCAV aad buu u fiican yahay. Symantec ayaa ka mid ah oo ah noocyada ugu caansan antiviruska. Better Defender ayaa ka mid ah noocyada kale ee loo isticmaalo. Sidaad ogsoontahay antivirusyadu way badan yihiin. Qofka markuu soo gadanayo 1 PC macnaha waxaa laga wadaa personal computer. Hal computer oo shakhsi qofka uu leeyahay ayuu ku shubanayaa antivirus wuxuuna haynayaa 1 year hal sano. Antivirusyada marka way kala duwanaan karaan. Marka kan ugu fiican oo haddaad heli kartid internet joogto ah ama markasto bishiiba aad soo update garaysan karto waxa ugu fiican Kaspersky. Kaspersky ayaa ugu fiican haddaad internet helaysid. Shirkadaas marka antivirusyada waxay ka difaacayaan wax alla wixii virus ah oo computerka culays u keeni lahaa ama computerka shaqada ka halayn lahaa ama dukumentiyada meel aad dhigatid shaqada ka joojinaya ama ka xadaya ama ka qaribaya. Sawir aad gashatay mararka qaarkood computerka waxaa arkaysaa soo kici marka aad sawirka fur marka ma furmaayo bashqad cadaan ayaa meesha ka muuqda ama sawirka dhexda ayuu kala go'an yahay. Waxaas iyo wax la mid ah ayaa computerka ku dhacay. Sawiraanteedii iyo waxyaabaha aad gashatay ma shaqeynayaan. Hadday shaqeynayn waxaa ku dhacay virus. Viruska waxaa loogu talagalay barnaamijkan. Sidaad ogsoontahay diyaaradda cirka marayso waxaa soo suubiyay shakhsi ruux baa suubiyay bini'aadan ah. Nin kale ka daba masayr wuxuu dhahay diyaaradda haddii kor ay aado anigana waxa uu qasbay inaan dhulka soo dhigo. Wuxuu suubsaday lidka diyaaradaha. Hub ayuu suubiyay diyaaradda dhulka lagu soo dhigayo. Ninna wuxuu suubiyay virus oo computerada ku shubay. Ninna wuxuu suubiyay viruskii wixii looga hortagi lahaa ee lagu difaaci lahaa computerka. Sidaa darteed waxaa ogaanaysaa in ay jiraan dad marka wax bulshada dhibo iyo dad bulshada wax u qabto. Waa maxay virus? Viruska computerku waa barnaamij waxyeello geysta, wax ka beddela xogta iyo macluumaadka, dira email, fariimo muuqaal ah, ama hawlahaas qaar ka mid ah oo wada jira. Waxaad uga ilaalin kartaa computerkaada in virus uu galo adiga oo ku shubaya barnaamij lid virus oo afka qalaad lagu dhaho antivirus. Marka lagu shubo barnaamijkaas computerka wuxuu ka hortagaa oo uu hubiyaa in virus uu soo galo. Haddii uu arko wax leh astaan virus wuxuu bixiyaa digniin ama viruska ayuu takooraa
ama ka tirtiraa computerka. So viruska hadduu soo galo wuu takooraya ama wuu ka tirtiraya ama digniin ayuu ku siinayaa. Astaamaha lagu yaqaan marka uu virus computerka galo waxaa ka mid ah xawaaraha howlqabashada computerka oo yaraata, hard-diskiga macnaha meesha wax lagu keydiyo xogta computerka, maskaxda computerka meesha fariimaha, codadka, filimaanta, musalsalada, riwaayadaha, heesaha, quraanka, axaadiista, wax alla wixii aad meesha dhigin sawir haddii ahaan lahayd meesha la dhigta ayaa loo yaqaanaa hard-disk, waa keydka computerka. hard-diskiga computerka waa memoriga maskaxda, memoriga telefonka oo kale ay la mid tahay. hard-diskiga computerka oo waxyeelo gaarta. Nidaamka howlgalka waa computerka waxyaabaha uu ku shaqeeyo uu kusoo kaco ama uu ku damo ayaa loo yaqaanaa nidaamka howlgalka. Nidaamka howlgalka oo loo yaqaano af qalaad operating system oo shaqayn waayo computerka soo kici waayo ama hadduu soo kaco isdaminayo, waa soo kicin uu isdaminayo. Nidaamka howlgalka oo loo yaqaano af qalaad operating system oo shaqayn waayo. Sanduuqyo fariimo ah oo soo noqnoqda ama soo bodbooda. Barnaamijyo aadan dalban oo iskood u furma. Barnaamijyada lidka viruska ah kuwa ugu caansan waxaa ka mid ah MCAV, Avast, sidoo kale waxaa ka mid ah Symantec, waxaa kaloo ka mid ah Bitdefender, waxaa kaloo ka mid ah Norton ayaa ka mid ah, sidoo kale waxaa ka mid ah Kaspersky. Dhammaantoodu waxaa waaye antivirus loogu talagalay in computerka dhibaatada u geysanayaan virusyada inuu ka difaaco. Su-aasha lagu weydiin karo waa maxay viruska computerka? Waxaa leedahay viruska computerka waa barnaamij waxyeelo geysta. Waa maxay viruska computerka ku dhaca ama waa maxay virus? Jawaabta aad bixinayso waxaa waaye viruska computerku waa barnaamij waxyeelo geysta, wax ka beddela xogta iyo macluumaadka, dira iimaylo, fariimo muuqaal ah ama howlahaas qaar ka mid ah oo wada jira. Inta waa jawaab dheer, laakiin adiga waxaad ku gaabsan kartaa viruska computerku waa barnaamij waxyeelo geysta, wax ka beddela xogta iyo macluumaadka. Halkaas ayaa jawaabtaada ku ekeyn kartaa. Su-aalka lagu weydiin karo waxaa ka mid ah maxaa lagu garanayaa hadduu computer ku dhaco virus? Maxaan ku garan karaa in virus computer ku dhaco? Shantan qodob ayaa ah astaamaha lagu yaqaano marka uu virus computerka galo. Xawaaraha howlqabashada computerka oo yaraata. Waxa lagu leeyahay maxaa ku garan kartaa? Sheeg astaamaha lagu yaqaano viruska computerka markuu galo. Sheeg astaamaha lagu yaqaano markuu virus computerka galo. Astaamaha lagu yaqaano markuu virus computer galo waxaa ka mid ah xawaaraha howlqabashada computerka oo yaraata, hard-diskiga ama computerka oo waxyeelo gaarta, nidaamka howlgalka ama operating systemka oo shaqayn waaya, sanduuqyo fariimo ah oo soo noqnoqda ama soo bodbooda, barnaamijyo aadan dalban oo iskood u furma. Maxaa looga hortagi karaa ayaa lagu weydiin karaa. Lidka viruska waa maxay marka? Lidka viruska, su-aasha kale ugu dambeyso oo lagu weydiin karo waa maxay lidka viruska? Lidka viruska waa barnaamij looga hortago viruska. Sidoo kale waxaad dhahi kartaa waxaad uga ilaalin kartaa computerka in virus uu galo adiga oo ku shubayo barnaamij lid antivirus. Marka lagu shubayo barnaamijkan computerka wuxuu ka hortagaa oo hubiyaa in virus uu soo galo. Haddii uu arko wax leh astaan virus wuu baabi'iyaa, digniin uu dirayaa ama viruska ayuu takooraa. Ogow marka waa maxay lid virus? Lid virus waa barnaamij lagu shubo computerka oo ka difaaco virusyada. Halkaas waxaa inoogu eg kusoo gabagabeynay cashirkii ahaa technology fasalka 8aad. Su-aalaha dhammaan waan soo geliyey, hawada ayay kusoo jiraan. Bismillahi alkariim, halkaa kasii daawada. Waxaan idin rajaynayaa kheyr badan. Walaalkiin Maxamed Abdiqaadir Cusmaan oo idin leh soo dhawaada mar walbo meel kastoo joogtaan. Waxaan jeclahay inaan idin soo gudbiyo xog iyo macluumaad dhammaystiran. Waad mahadsantihiin. Sii faafiya, share dhaha, ardayda kale gaarsiiya dhammaan.
cashir practical leh ayaa noogu soo xigo insha allahu tacaala wabillahi tawfiiq